السلام عليكم اتسمام الليلة وإذن سلامي وحرجينا يا إنا عافمات قبطان. Happy Friday, جمعة مبارك. ما أنت جمعة. I've been busy improving myself. I've been busy وحان مشغول كو أها سلا نفتي إذا أن وبدباتشو لباتوين كان أن لفود لي هاي but at the same time نفتي إذا سدان aan ugu diyaariyo ilaahay ridaagiisa ama ilaahay siduu raalli ka yahay. Waxaan mashquul ku ahaa sida runta ah ilaahay iga aqbalay cibaado aad u badan, dhikri aad u badan iyo qur'aankan akhriyo every day. Sida idiin sheegay hadda ka hor suuratul baqara iyo suuratul kahf every day baan akhriyaa, laakiin qur'aanko from cover to cover book kitaabka quraanka oo dhan baan akhriyaa every month. Marka maanta waxaan rabay inaan idinla wadaago ducadan waa duca aan jeclaaday inaan dadka muslimiinta u soo gudbiyo, qalbigayga aad u purify garayso, aan idin kula waanin lahaa inaad akhrisataan mar walba soo quluubtiina u daahirisaan, uga daahirisaan wax waliba xumaan ah, wax waliba naceeb ah, wax waliba xanaaq ah, wax waliba cabsi ah, wax waliba jealousy ama maseer ama hinaasa ah, wax waliba ma aragtay dhibaato dhanka kale dadka kaa soo gaartay, dhibaato lagu xumeeyey. For example, على حسب المثال waxaa lay ducadu waa rabbana laa tajcal quluubana qillan liladiina aamanuu rabbana anta ara'uufu arraxiim. qur'aankay ku jirtaa waa suurat alxashar, waa aayadda 10aad. markas taas baan rabay inaan idinla wadaago.